لانكي صبروا سدي هلا سدي فضاني سسانتيوا سجيري كبير كي انصر ما سمد صوت وست سلام سارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشيدا قيمها قالوا ملك استاد عالمك كاga sugantiin kusoo dhawaada shabakada wararka Selac 24 maanta waxaanu idin haynaa faal gaar oo ku saabsan Sol Meeday xaaladda Sol xilligan siyaasadda cakaranaya Soomaaliland ka jirta doorashooyinka la doonayo in la galo iyo madaxweynihii lagaga tagay dal iyo dad isu dhameystiran maanta dadkii iyo dalkii halkeebay kala joogan. waxaynu kala faaladeena ku eegi doonaa ergada faraha badan ee ku soo qulqulaysa magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood go'aankoodu muxuu noqon doonaa dadkuse sideeba u arkaan. waxaynu kala ku eegi doonaa nin garaad oo isaguna maanta magaalada Hargeysa ka hadlay oo yiri dhulbahanta uu is cadeeya haddii ay dhulbahanta is cadeeyaan xageebay qaban doonaan se calankeebay qaadan doonaan. halkan waxa idinka muuqda Cabdiraxmaan Ciro iyo madaxweyne Muuse Biixi waa musharaxa xisbiga wadani iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo isa salaamaya sawirkan muddo hore ayay galeen waana ninka la rajeynayo oo dad badan ay saadaalinayaan inuu bedeli doono madaxweyne Muuse Biixi laakiin ma wuxuu bedeli doonaa gobolkii Sool oo Somaliland ka maqan Somaliland oo kala dhaqaaqday mise Somaliland wali wada joogta ayuu talada dalka soo gaari doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. su'aasha ay dad badan jawaabteeda u baahan yihiin waxa weeye xilligan Sool yaa diray se Sol Meeday haddaynu si fog u eegno gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood xilligan ergooyin fara badan baa ku shiraya oo garaadadii dhulbahanteyntoodii ugu badneed xilligan magaalada ayay soo galeen. wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland isna wuxuu sheegay in aan wax qadiyada Somaliland ka soo horjeeda aanay aqbali doonin laakiin hadda goobta waa Laascaanood dadka talada gaadhayana waa dadkii Somaliland boqolkiiba 90 ka soo horjeeday aragtideeda dad ku qanacsan ma aha dadka go'aankan la sugayay inay soo saaraan taageerayaashooduna waxa kaliya ay sugayaan waa talo Somaliland ka dhana laakiin Somaliland xageebayadu ka haysataa idaada. waxaa la oran karaa maadaama madaxweyne Farmaajo uu ka maqan yahay kursigii Muqdisho iyo taagta Puntland in ay Somaliland halka ka haysato idaad fara badan laakiin madaxweyne Xasan iyo xukuumadda Muqdisho Somaliland ma isku sii halayn kartaa mise Somaliland waxay ku baraarugi doontaa shirar kale iyo dawlado kale oo laga dhiso magaalada Laascaanood. si kastaba ha noqotee xilligan siyaasadda geeska Afrika waxa la leeyahay uma baahna dagaal sokeeye oo ka bilaabma laakiin haddii xaaladda Laascaanood ay sida ku sii jirto waxa suuragal ah inay horseedo dagaal aan la saadaalin karin halka ku dhamaanayo. haddii dhagta ruux la jaro dalalku joogaya jaleelada geedu yal midhaha laga jalamsadaa haddii dhagta ruux la jaro dalalku joogaya jaleelada geedu yal midhaha laga jalamsadaa